indira gandhi ayaa su'aal weydiisay aabbaheeda jawaahir laal dahar waxay tiri waddan haddiis dagaal ka dhaco dagaalkaas muxuu saameyn ku yeelan karaa markaasuu yidhi iqtisaadka ama ganacsiga ama tijaarada burburta ayuu yidhi sidee ayay tiri markaasuu wuxuu yidhi waddanka hadduu dagaal ka dhaco dekadaha way xirmayaan eelboorka way xirmayaan wax baxaaya mal wax soo galaayana ma laha shacbiga ama ciidanka haddii ay baahdaanna waxaa dhacayso bililikho hantidii dadweynaha iyo tii qarankaba in la bililiqaystaa dhacayso okay kadib maxaa dhacayay tiri waxuu yidhi waxaa dhacaya akhlaaqda iyo sharafta iyo mabaadi'da dhumaysa uu yidhi markaasay tiri sidee macnaha sheekh iyo shariif caami iyo culum isku halleel naqaa ninka xishoohaya ma laha ninka xishoohaya ma laha nin weyn wiil yar ma ka xishoohaya hooy iyo aabba ma kala xishoohayaan wiil iyo aabbiis ma kala xishoohayaan aabba iyo igaarkiis ma kala xishoohayaan waxayna qaheen nin walba awooddeeda iyo quwaddeeday noqonaysaa sheekada kadib maxaa dhacayay tiri markaasuu wuxuu yidhi waddan akhlaaqdiisa iyo mabdi'iisaba dhumay dadkiisa maxaa ku joojinaya uu yidhi iskaga bax waddankaasuu yidhi inaad joogtidba ma aha marka qofkii ibni aadanka maalkiisa hadduu nusqaamo beertiisa hadday nusqaanto arsaaq yare haddii ay dhacdo waa noolaan karaa laakiin sharafta iyo qiyamka wadaniinimada haddii ay dhunto qof walba oo nafsadiisa lee jeclaado waddankaas waddan ma ah oo dhammaatay sidaas darteeda waxaa dhacaysa marka nin walba nafsadiisa lee inuu jeclaado uu dhaho waxaan aniga dhihin ma soconayso tan anigaa dhahay waa inay socotaa unukaa leh iyo wixii limid ah sida hadda dalkeenaba ka jirto waxaa dhacaysa marka sharaftii inay dhunto qofkii sharaf leh waddani ah waddankiisa jecel nabadda jecel inuu noqdo laangaab ninka dulmiga jecel dadka dhaco guryaha daduu haysto dadka dilo musuqmaasuqu sameeyo fidnada abuuro inuu noqdo laandeer sida maantaba taaganba marka jawaahir laal dahar been ma sheegin waddan akhlaaqdiisa haddii ay dhunto shacbigan akhlaaqdiisa ay dhunto qalbigooda qurin iyo ikhbiyaaladle uu galo tan maanta taaganaa dhacayso hadalkayga isku dhibin ra'yigayga laan cabirooya aniga waani salaam asxaabta qaaliga ah meel walba oo dunida daafeeda ka joogteen maanta waxaan joognaa madiinat alkoloon sartaasay caan ku tahay ujeedina malena dalxiis iyo wax dhan meeshaana la iskugu yimaada waa la baashaalooyaa ninku dheggan ma laha waa la kala dhaqmooyaa wax ishaa haysta oo israbin soomaali lee waay dadku waa kafiir day waa la iska baashaalooyaa ujeedin ya wallaahi bilaahi wax ishaa haysto oo israbin oo isdiloohaayo oo isxasdoohaayo soomaali lee waay soomaali lee waaye ilaahay dalka anuu fiyoowe dalka ma fiyoowe macnaa waa jirin yahay ilaahay anuu fiyoowe waa idin salaami